عليه وسلم إلهي أيام هذا إسكاله سبحانه وتعالى مر لبعضنا وحنا مهد علينا هيا تيمك دولة جولات قلب ذو قصة عدو ساردة تمرت يبيها وحن سود وينينا وأن أباهنا وباهي وين أقبني عيل كان بيها وماشان تاجن وحلي سيه الريدي مدحوينها دولة قلب ذو أحمد عبد كارية حلي أو زرفين سمينا أو ماشى مري ونوبل لنقاضي السجايو كله سوسي ردا ويجوه الرئيس وسارة تمرت يبيها دولة جولات كجلمدوج أي غيب كهاد وسارة جرجارك ويوسارة عافيمات كلا بضبا إلهي يا نوم هاد علينا ياه أنت أسكدب وحنا سوق جاري عيل كبيها ومارك تلوم على المنلجوجة تذكر ديجان كنا قاد بوبهناين تيم كان صعدة وأجاسمها وسارة تمرت يبيها وجامين يوم مستر إبراهيم هذه هذا نقوم هاد علينا وسود ويننا deegaanka ku soo dhawaada ceelkaas waa u baahnayn ilaahay noo keenay baa mahadle dadkii ka soo shaqeeyay oo arintaas juhdiga iyo nidaamka ku soo baxshay baan uga mahad celinaynaa annaguna waxaan rabnaa inaan kaalinta nagu aadan ka qaadano annagoo baahideena rabna inaan ku baahi tirno deegaanka iyo bulshada dhibaatooyinka haya sidaas annaguna diyaar u nahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa sharaf noo ah iyo farxad noo ah intaba inaan soo gaarnay maanta deegaanka Ardo oo runtii ka duwan sidii hore aan u imaan jirnay dhowr jeer waan nimid deegaanka sahanaan ku nimid runtii waxaan aad ugu koorgalnay baahiyaha biyo ee ka jira deegaanka waxaan la fariisanay odayaasha deegaanka dadka dhaqanka deegaanka gudoomiyaha deegaanka runtii cabashooyinkii maaragtay xoogooda ay ku qotomeen dhanka biyaha waxaad moodaa in maanta bilowgoodii aan joogno oo maanta uu maaragtay markii ugu horeysay ama tilaabadii ugu horeysay aan maanta madashii taaganahay oo riigii maaragtay ordhaca u ahaa shaqada uu soo gaaray runtii wasaaradda tamarta biyaha galmudug wasiirka wasaaradda tamarta biyaha galmudug iyo dhammaan dawladda galmudug iyadoo ka duuleysa aqabtirka baahiyaha maaragtay dadka deegaanka haday aadanka miyiga iyo haday dhanka magaalada intaba sablayga iyo adeeg gaarsiinta biyaha waxay mar walba u heelan tahay ama heegan ugu jirtaa in ay dadkii deegaankii ku dhaqnaa oo miyi iyo magaalada deganaa inay gaarsiido runtii kana aqabtirto baahiyaha ay qabaan oo dhanka biyaha ah ayada ka xil saaran waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u fududeeyo dadka deegaanka iyo sidoo kale to engineering ka shaqeyn doona hawshan runtii waa hawl maaragtay mixnadeeda leh mushakilkeeda wadata waxaan Ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa ta'aala fadliga ramadaanka iyo tobanka dan fadligooda inuu Ilaahay ugu fududeeyo runtii meeshaan aan ku soo noqono mar labaad ayadoo maaragtay biyo mac laga durduuranayo oo dadka deegaanka ku qabeeran hadii Ilaahay yiraahdo waxaan sidoo kale dalda daarmaya dadka deegaanka inay si wanaagsan oo maaragtay garab galaan in maaragtay shaqada sida ugu wanaagsan oo maaragtay looga mid dhali karo ay ku taageeraan shaqada dadka wada hadii Ilaahay yiraahdo wasaaradda biyo waa in ku soo laabo doontaa marka maaragtay ceelka dhex maray imaan doontaa waxay mar walba u imaan doontaa in uu ku urgasho baahiyadii iyo sidii maaragtay ay u socdaan iyo sidoo kale in shaqadii iyo riigii iyo engineeringkii iyo ceelka qodaalkiisa oo sidii lagu heshiiyay u socdo waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii gacan ka geysatay ceelkan qodaalkooda oo isugu jira hay'adaha caalamka iyo maaragtay midowga Yurub intaba iyo sidoo kale wasaaradda biyaha howlwadeenadeeda oo ayaguna juhdi iyo waqti dheer galiyay in deegaanada galmudug ay runtii ka qabeelaan baahiyaha biyaha runtii deegaano badan waxa jira oo mana ah oo ayaga ruuxooda hadda lagu socdo oo mar walba prioritiska iyo mudnaanta iyo deegaan kasta iyo markasta baahiyadiisa iyo shacabkiisa iyo deegaankiisa ayaa markasta waxaan ku sameyn doonaa insha Allah shahan iyo qiimeyn mar walbana wixii yimaado wasaaraddu waxay ku talagali doontaa in mar walba dadka galmudug dadooda baahan biyo u baahan waxbarasho u baahan caafimaad u baahan mar walba wax walba waxa asal u ah oo buddig u ah in dadkii maaragtay biyihii iyo oonkii laga qabtiro hadii Ilaahay yiraahdo deegaanada kale tan waa ku xigaan waxa rajeynaa in dadka heer Ardo ay qabeelaan dhanka biyaha ka qabeelaan insha Allah si wanaagsan ay uga faa'iideysan doonaan runtii meeshan qarasha la geli doona aga badan la geli doona waxa ayagana ka rajeynaa in ay fiican u soo dhaweeyaan dhul fiican u sameeyaan dhul seera u sameeyaan u xiraan sida ugu wanaagsan ee maaragtay loo garab geli karo ay wada shaqeyn hadii Ilaahay yiraahdo waxaan uga mahad celinaa gudoomiyaha iyo dadka deegaanka sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo sida daahfurnaanta leh ay maaragtay nooga qayb qaateen maaragtay riiga imaashiisa iyo sidoo kale qodaalka ceelkan insha Allah waxaan sidoo kale marka ugu dambeysay u mahad celinayaa hay'adda IOM oo runtii ayaduna qayb ka ah mashruucan iyo hirgelintiisa dhowr deegaan oo galmudug ahna ka wada isla mashruucan deegaan bile waxaan sidoo kale leenahay ayagana waa maasantiin maadaama maaragtay ay mar walba yihiin dadka markasta galmudug la garab taagan maaragtay dhinac walba baahiyadu inay ka qabtiraan oo runtii mashruucan deegaan bile oo hadda aan maaragtay taaganahay wax qabadkiisii koowaad ee heer Ardo ayagu ruuxooda qayb ka ah